السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta way bishu tahay bishii labaad 23keedii 2022kii xalayto markii ahayd saacadu 2:45 daqiiqadood habeenimo ayaa ciidanka dabdamiska lagu soo wargeliyay in ay gubanayso dhakhtarka Al-Hayaat la yiraahdo inay gubanayso isla markiiba ciidanku way soo gurmadeen markiiba waxay u yimaadeen meeshiyo dabku soo haysto dhismuhu labaha marka qayb way baabadeedu qaybna waan nabadgelinay hase haatee ciidanku markay imanayeen albaabadna way xidhnaayeen dabkuna soo haystay ciidanku aad iyo aad buu dadaalay hawshoodu way qabsadeen waxa aad iyo aad maxaa la mushkil u ahaa dabkii oo aad u farabadnaa qiiqo aad u farabadnaa dawooyinkii iyo maxaa la yiraahdaa irbadihii iyo dusha siliigana uu yahay maxaa la yiraahdaa siliig dabka aad u fidiya ayaa dabka aad u fidiyay marka ciidamada dabdamisku si fiican bay uga qayb galeen waxa aad iyo aad u mahadsan ciidanka booliiska oo garab jooga oo isla markiiba markii anagu nimidba nala joogay ammaanka meesha ilaaliyay ilaa iyo 2:45 ilaa iyo imika waa kuwa naag taagan marka dhismaha imika khatar aad iyo aad u weyn buu ku jiray laano afartii sahareeroodba waxa ka xiga maxaa nijaariin ba ka xigta bakhaaro weyn ba ka xigta marka waxaan dadweynaha iyo cidda wax sameeysanaysa aan kula talinaya in meelaha ay wax ka dhigaan u meeldayaan halkan oo kale dhakhtarku qalad buu ku ahaa laano miina ku wareegsan meelaha sidii guman lahayn aan ciidanka dadamisku aanay ka difaacin waxay noqon lahayd يوم القيامة نقول لهم marka ciidanka dadweynaha shaqadu waxaad in dabka baqtiyaan in afarta dhinacba bakhaarada waaweyn ee looxaantii siliiga iyo waxyaabaha dabka u nugul in ka difaacaan alxamdulillah taasna waa lagu guuleystay mar labaad iyo mar saddexaadna waxaan si fiican ugu mahadinaa ciidanka booliiska oo saraakiishooda ka noola joogan ciidamada dabdamiska saraakiishooda noola joogan iyo intii noola shaqeeyay الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلهي بن مهدينا تبارك وتعالى marka xiga waxaan mahadinaynaa dhammaan ciidamadii soo gurmaday amniga guud ahaantood booliiska iyo dabdamiska run ahaantii sida uu taliyuu sheegay waxa khasaaraha goobtan gaaray wuxuu ka koobnaa meesha waxay ka koobantahay laba dhismo hore iyo dhismo dambe oo shaqadu labaduba ay ka socotay dhismaha hore oo qaybtan gaaban ee guriga gaabana run ahaantii khasaaro weyn baa gaadhay dhismahan iyo hantidii dhex taalayba qalab wixii yaalayna uu ku baaba'ay dhismaha labaad ee fooqa ah ee dhinaca waqooyi ka xiga guud ahaantiiba waa la nabadgeliyay isaga iyo wixii qalab dhex yaalayba ilaahay baa mahadle marka koowaad marka xiga ciidanka dabdamiska afartii station Hargeysa heegankoodu way ka howlgaleen 12 gaari oo gurmada baa yimid 85 xubnood oo heegana baa yimid sidaas la mida ciidanka booliiska labada taliya qaybood iyo xarumahooda oo dhanba way yimaadeen iyagana waan u mahad celinaynaa khasaaraha ciidamada howlwadeennada soo gaaray dabdamisku waa 4 xubnood oo kuruuga ciidanka saddex kamid guriga ku soo dumay markii ay mishiinka la xarbiyeen MRA-ga oo ay la dagaalamayeen oo ay diidayeen inuu dabkaasi khasaare kala gaarsiiyo dhismaha qaybta labaad iyo dhismayaasha hareeraha ka xigaba waxaana ku soo daatay waxyaabahan guriga lagu qurxiyo ee chipsanka la yiraahdo iyo galaadinka iyo waxyaabaha lagu xidho ayaa dhakada kaga yimid khasaarahaas uu koobayay walow askari kamid ah madaxa uu kaga dhacay oo dhakhtarka ciidanka dabdamisku uu baari doono sidoo kale taliyaha ciidanka dabdamisku naftuuraha koowaada 2 jeer buu ku siibtay marmarkaasi aan loo meeldayn inuu yahay marmarkii cagta la dhigayay iyo inuu yahay maxaa la yiraahdaa kii gidaarada lagu qurxinayay oo run ahaantii taalafteedu u baahan tahay qolyaha wax dhisaya ee xagga safety-ga ay aad iyo aad uga fikiraan ay ka taxadiraan isagana gacan bay dhaawac ka soo gaadhay run ahaantii howlgalkaasi waxa uu soo gabagaboobay 6 subax 6 iyo 45 minute oo hadda aan idin la hadlayno